dufcaddii ugu horeysay arday Soomaaliyeed oo sanadkan deeq waxbarasho ka heshay wadanka Suudaan ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen magaalada Khartoum ee xarunta wadankaasi taasoo lagu soo waramayo in si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi Fiidow Maxamed Fiidow wariyahayaga Khartoum ayaa arrinkaasi soo diray dufcaddii ugu horeysay arday sanadkan deeq waxbarasho ka helay dalkan Suudaan aan walaalahan nahay ayaa soo garay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ardayda Soomaaliyeed oo Suudaan soo gaaray oo tiradu ay gaarayso 41 arday ayaa waxa ay deeq waxbarasho ku heleen wada ay u mareen wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee ku meel gaarka ahayd ee muddada sanadka ay soo shaqeynayay la soo dhaafay soo dhaweyn heer saraha ay u sameeyeen golaha ardayda qaranka Soomaaliyeed iyagoo ardayda ugu horeysay ee lagu keenay magaca dawladda Soomaaliya intii uu hayay xilkii wasiirnimada waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Professor Ibrahim Cadow Allah uu naxariistay qaar kamid ah ardaydaasi oo ugu warmay TV-ga qaranka iyagoo ku sugan airport-ka caalamiga magaalada Khartoum waxay yiraahdeen sida tan Bismillahir Rahmanir Rahim magacaygu Ahmed Abdi Ali waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan fadhistay dawladda waxbarashada aad iyo aad ugu faraxsanahay caawo imaadinkan imaaday magaalada Khartoum aad iyo aad u fiican tahay Bismillah magacaygu Ahmed Ciise waxaan magaalada Muqdisho markaana halkan waxa uu imaaday inaan wax barto isla markaana jaamacad kamid ah jaamacadda Suudaan ay u deeqaan waxbarasho lacag dareenkaaga halkan aan ka waramo markaad wadanka ka tagto wadan kale joogto xadrinka waa dareemay maanta aad u faraxsanahay wax badan dareemay insha Allah magacaygu Cabdi Saama Khayre waxaan ku soo baxay magaalada Muqdisho waxaan ku soconaa magaca wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taasoo tigilsan inaan halkan imaadno qaadayaan markii mahad cilmi wasaaradda waxbarashada markii imtixaanaad ee Allah subhanahu wa ta'ala oo meesha tigiliyaan magaalada Khartoum imaadno guddiga dhalinyarada Soomaali National Congress Students in aad loo fududeysiyo si diiran iyo si ma sha Allah aad baan markii dhaxaad mar labaad mahad celinaya taabidashada maxaa inaanu ka soo muuqano oo ka soo dhaalo magacaygu Siyaadimo aad ma kuntiin ardayda Soomaaliyeed ee ka mid ah ardayda qaranka iyo waxa ma ilnaaya dawladda Suudaan oo dadka waxbarashada siisay aad ma kuntiin anigu Ahmed Maxamuud Ahmed ahna gudoomiyaha golaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Suudaan waxaan aad u faraxsanahay inaan soo dhaweyno 41 arday oo ka imaatay dalkeena hooyo magaalada Muqdisho 4 gabdhood iyo 7 iyo 4 gabdhood iyo 7 wiil soo dhaweynta waxaan u qorsheynay ardayda walaalahood oo wataan saaxiibada waalidkood inay wataan oo jira aad u aan la galno barashada sidii jaamacad ay ku leeyahay waxaan u diyaarinay guri ee xarun golaha ardayda qaranka Soomaaliyeed ee ku yaal dalka Khartoum si golaha dadka ka barto gobolada inay ugu soo dagaan kuwa hadda hooyga ee qof soo dhaweynay inay guriga keeno aan u talagalnay ardadan habeenkan caawa soo gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa waxay bilow u yihiin arday dhowr boqol ah oo sanadkan kaliya deeq waxbarasho ka helay dalka Suudaan iyagoo ay jiraan arday iyagana sidoo kale waxbarasho Suudaan ka helay oo aan ku imaan magaca dawladda dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada inta badan Soomaaliya ka taageeray dhanka waxbarashada iyagoo sanadkii la soo dhaafayna dawladda Turkiga ay noqotay wadanka labaad ee Soomaaliya si deeq waxbarasho oo aad u badan 41 arday ee ka socday wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ay xilkeedu dhamaaday ayaa waxa uu noqonayaa ardaydii ugu horeysay ee sanadkan deeq waxbarasho dalka Suudaan ka heshay ee soo gaaray dalka Suudaan iyadoo habeenkan caawan halkan lagu sameeyay soo dhaweyn heer sare oo ay ka socdeen ardayda iyo safaaradda dalka Suudaan baa ay soo dhaweeyeen Fiidow Maxamed Fiidow TV-ga qaranka Soomaaliya Khartoum Suudaan